salaan kadib waxaan rabaa xogaa yar oo akhbaar ah inaan la wadaago guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland xogaga akhbaartu waxay ahayd xiriir ay la soo sameeyeen saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo bilowday taariikh 4 iyo sidoo ku soo dhamaaday iyo natiijadiisii iyo meeshuu ku dambeeyay yaan rabaa inaan xogaa faahfaahin aan ka bixiyo cid kasta oo warkan aan duubaya ama aan ku hadlayo macnaheedu dhageysata warkan oo macnaheedu tafatiran iyo faahfaahintiisa waxay ka akhrisan kartaa oo kala socon karaan barta aan ku leeyahay macnaheedu Facebook-ga yaan si qoraal ah macnaheedu faahfaahsan oo sharaxaad dheera iyo wixii macnaheedu aan isniri yaan ku soo koobay marka cidii macnaheedu u baahan warkan faahfaahintiisa bartayda Facebook-ga kala socon doonta insha Allah barnaamijka marka aan rabo inaan in la wadaago ee guud ahaan bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago wuxuu ahaa sidaan hore baynu ku sheegay waxa xiriir la soo sameeyay saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyagoo iga dalbanaya inaan la shaqeeyo dawladda Soomaaliya rabitaanka ay rabtay iyo dalabkeedana inaan fuliyo ka bacdiina la ila soo xiriirin doono madaxda qaranka macnaheedu ugu sareysa hadal dheer ka bacdi oo ahayd ninka ila soo xiriiray nin la yiraahdo magaciisa igu sheegay Axmed lambaradiisana aan ku soo qoray bartayda Facebook-ga iyo cid kasto ila xiriirka ila sameysay aan macnaheedu faahfaahintooda iyo lambaradooda iyo cid walba waxaan isnidaan ku soo daabacay halkaas Axmed hadal dheer ka bacdi oo Axmed wada hadalay wuxuu ii gudbiyay taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin oo iga dalbaday inaan la hadlo ninkaas oo sida uu wax u rabo ee dawladdu ay wax u rabto qaabkaas inaan macnaheedu ka dhageysto qaabkaan aan wax u fuliyo ka bacdi wuxuu ii gudbiyay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin xiriirku markii ugu horeysay uu bilowdayna waa taariikh 4 xilliga Fahad Yaasiin la ii gudbinayo waa taariikh 6 taariikh 6 xilli habeenimo oo saqdhaxa oo labadii dambe ee habeenimo yaan wada hadalay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin Fahad Yaasiin wuxuu ii soo bandhigay qorshaha ay dawladda Soomaaliya ay rabto anigana ay iga dalbanayaan inaan fuliyo macnaheedu ay u baahan yihiin isaga oo mar walba macnaheedu oranaya wax kasta oo dalabkaaga ah oo ka rabto qaranka Soomaaliya waa lagu fulinayaa hadduu darajo yahay iyo hadduu macnaheedu hanti yahay wax kasta oo macnaheedu afkaaga ka soo yeedho oo dalabaha dawladda Soomaaliya aad ka rabto waa lagu fulinayaa ballantaana waxa ku qaadaya aniga oo taliyaha nabad sugidda madaxweynaha qarankana waa lagu la hadalsiin doonaa isagana wixii dalacaadaada iyo darajadaada aad macnaheedu aad ka wada hadlaysaan qaab noocaas uu Fahad oo hawsha uu igu dhigay anuguna xilliga iyada waan la qaatay aniga oo raba inaan yoolkooda ay rabaan ay higsanayaan inaan ka gungaadho oo meesha ugu dambeysay ee macnaheedu hadafkoodu uu yahay macnaheedu aan soo taabto xilliga iyada Fahad Yaasiin qorshaha koobaad ee uu ii soo bandhigay waxay ahayd inay bixiyaan tashiilaadka ciidanka aan anigu mas'uulka ka ahay si loogu gacan geliyo ciidanka iyo hubka iyo gaadiidka aan hayo inaan dawladda dhexe macnaheedu aan u gacan geliyo ka bacdiina aan gaarsiiyo heer aan la dagaalamo macnaheedu maamulka Jubbaland aan ka hor imaado Fahad wuxuu yiri macnaheedu waxaan rabnaa ma hadow lambar 1 qodobku ila yimaadee koobaad waxaan rabnaa ciidankaaga inaad diyaariso shidaalka iyo tashiilaadka iyo mushaharka ciidanka iyo raashinkaba intaaba macnaheedu aan ka bixino inaad guurto oo tagta meesha la yiraahdo dhiyac garoon oo u maleynayo afmadow inay u jirto 140 kilomitir qiyaasan meelahaas aan qiyaasayo oo xagga xuduudka ka halkaasaan rabnaa inaad macnaheedu aad tagto halka marka tagto waxa ku iman doona oo soo degi doona diyaarad helicopter oo la socdaan niman saraakiil ciidan iyo injineero waxayna qiimeynayaan oo indhaynayaan meel laga dhiso garoon yar oo ay baldegi karaan diyaaradaha ciidanka lagu soo qaadi doona dhawaan
injineeradaas markay ku yimaadaan qalabkii dhulka lagu hagaajin lahaa garoonka lagu xaaqi lahaa macnaheedu ay ku keenaan hadday suurtagal noqoto waxa laga diyaarinayaa meesha garoon yar oo macmala garoonka xilliga la diyaariyo ciidamada lagu keeni doonaa ka bacdi ciidamada xilligii meesha laga soo dejiyo waxa dawladda u sahlanaan doonta oon samaynaynaa inaan qabsano meesha la yiraahdo diif dhoobley ilaa iyo raas kambooni guud ahaan xuduudka oo dhan qorshaha koowaad ee Fahad uu ila yimaaday sidaas uu ahaa runtii qorshahaas waan ka cudur daartay waxaan ku iri macnaheedu qorshe kale oo la imaada laakiin qodobkaas isaga ah dhulkaas leedin haloo kacana masaafo noo jira marka barnaamij kale inaad la timaadaan baan ka dalbaday xilliga iyada inta kadib qorshihii labaad wuxuu u dhaceeyay waxaan rabnaa mahadaw inaad tagto meesha la yiraahdo dhoobley intaad ciidankaaga diyaarsato aad guurto aad tagto meesha la yiraahdo dhoobley riboodka dhoobley inaad qabsato saasaan ka rabnaa ciidanka dawladana xilliga airportka dhoobley inaan isticmaalo oo laga soo dego qorshaha aan rabna saas weeye sidaas ma samayn kartaaba iyo iga dalbaday ninka la yiraahdo Fahad xaqiiqiyan runtii qodobkaas waan ka cudur daashay waxaan ku yiri meesha la yiraahdo dhoobley amar la'aan xagga Jubbaland macnaheedu hadda hadaan ku tago xilligan iyada waxa ku sugan madaxweynaha Jubbaland ammaankeeduna aad buu adag yahay goobta iyada ma tay karaan ku yiri waan ka cudur daashay ka bacdi wuxuu ii sheegay in qorshe kale ay qaadan doonaan oo dib la igu soo noqon doono abaar ka bacdi markuu iga maqnaaday wuxuu igu soo celiyay qorshu igu soo celiyay ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin qorshahaas oo oranaya waxaan rabnaa mahadaw barnaamijkii macnaheedu dhoobley loogu kiciyay iyo kii dhuyac garoon loogu kiciyay labadaba inaan ka baxno qorshaha dawladdu inay Kismaayo qabsato ama dhoobley qabsato ama ay qabsato meesha la yiraahdo Gedo waxa uga muhiimsan meel walba inaan qabsano meesha la yiraahdo Afmadow waxaan rabnaa qorshihii Afmadow in laga sameeyaan rabnaa oo Afmadow dhinacna loo dhaafin Afmadow sida ciidanka macnaheedu dawladdu uu ku soo gaari lahaa inaad sahasho inaad macnaheedu aan soo diro ciidamo diyaarado garoonka aad qabsato ciidankaaga laba meelood aad u qaybiso meel xirada difaac ay ka xidhato meel aad u tagto airportka ka bacdi aad isku daydo hal saac kaliya ee macnaheedu inaad nagu simi karto si aan airportka aanu isticmaalo runtii qorshahaas waan la qaatay saasaan ku heshiinay ka bacdi waxa la ila soo xiriiriyay oo ila soo xiriiray nin ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha oo la yiraahdo Yuusuf Cadaani la yiraahdo runtii lambaradiisa waxaan ku soo qoray bartayda Facebooka iyo cid kasto ila soo xiriirday iyo wixii aan isla bartaasan ku soo daabacay oo mar walba cid rabta inay warkan ka bogato halkaas kala socon kartaa Yuusuf isagoo ii sheegay inuu ka socdo xafiiska madaxweynaha in cadeynaya inuu ku faraxsan yahay madaxweynuhu arintan mar walbana uu arintan madaxweynuhu wax kasta oo dalbato oo dalab oo xagga ka yimaada inuu dawladdu fulinayso hadal aan dheeron Yuusuf wada hadalay ka bacdi wuxuu igu geeyay telefoonka oo igu yiri waxa ku rabay madaxweynaha rabay inuu kula hadlo madaxweynuhu telefoonka igu geeyay xilli habeena oo malaynaya qiyaasaan ay ahayd 7 saac oo habeenimo saq dhexe madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri isagu hadal la kooban buu yiri hadalkiisu ma badnayn marka koobaad wuxuu igu salaamay General Mahad waan ku salaamay runtii jarnaal lamaan ahayn anigu darajadaydu waxay ahayd gaashaanle madaxweyne Farmaajo markuu wuxuu yiri General Mahad waan ku salaamay wuxuuna ii sheegay barnaamijkaas haddii go'aanada nabad sugidda qaranku ay ku soo gudbiyeen aad qaadato oo sida uu yahay aad u fuliso wax kasta oo macnaheedu dalabaada oo xaggaaga ka yimaada qaranku ku sameeynaya wax kasta oo fariin ama aniga aad iga baahan tahay
waxaad u soo gudbinaysaa oo la soo socodsiinaysaa ninka la yiraahdo Yuusuf yaa la soo socodsiinaysaa lana shaqee nabad sugidda iyo Fahad Yaasiin go'aanadooda haddaad fulisana qaranku amal gudbu ku siin doonaa madaxweyne farmaajo intaasaan isniri kadib waxa sii socday xiriirkii noo dhaxeeyay aniga ninka la yiraahdo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin wuxuu ii sheegay oo igu yiri waxaan rabnaa adiga mahad shakhsiyan inaan ku siino lacag 1 milyan oo kaasha 1 milyan oo dollar haddii aad cid aad isku halaynaysa ama aad taqaan ay jirto oo Muqdisho joogtana waad ii soo diri kartaa oo kugu wareejiyo 1 milyan waxaan ku ballan qaadayaa oo aniga iyo madaxweynaha qarankuba aan ku ballan qaadaynaa inaan adiga iyo reerkaagaba Turkiga aan guriga kaaga iibino lacagta 1 milyan aan ku siino intaasaan ku ballan qaadaynaa bi ugu yiri wax kasta oo codsato oo naga codsatana waan ku fulinaynaa waxaan ka rabnaa inaad macnaheedu nin sargaal oo qarankiisa u shaqeeyo aad noqoto mana rabno ciidan ahaan Jubbaland inaad macnaheedu ciidanka qaab qabiil aad u dhisnaataan waxaan rabnaa macnaheedu qaranka inaad la jaan qaadaan ma doonayna inaad macnaheedu ciidanka Jubbaland uu noqdo ciidan macnaheedu qabiil sida Somaliland oo kale iyo Puntland oo kale sidaas oo macnaheedu carabku macnaheedu uu igu dhuftay runtii ani iyo Fahad macnaheedu sheekadiina dhex martay way farabadneed way sii socotay wuxuu ii sheegay qorshahan inaan fuliyo afgambiga taariikh 10 oo ku beeganayd maalinta taariikh 11 oo ku beeganayd maalinta Arbacada inaan qorshahan aan fuliyo qorshaha macnaheedu qaabka loo fulinayo wuxuu ahaa Fahad Yaasiin uu jeexay in xilliga qorshahan la fulinayo guud ahaan macnaheedu la jaro ruudka anteenada afmadow oo laga jaro macnaheedu afmadow laga damiyo guud ahaan wixii ka hooseeya afmadow ee macnaheedu qooqaani iyo taabta dhoobley iyo diif hoosingo intaas oo dhan macnaheedu anteenadooda in laga damiyo meesha la yiraahdo afmadow ka bacdiina horay waxa u jirtay in la ii weydiiyay macnaheedu inaan haysto turaayada macnaheedu satellite-ka macnaheedu ku shaqeysa aan una sheegay macnaheedu inaan haysto turaayada xilliga anteena la daminayo wuxuu ii sheegay inaan ka xiriirno turaayada inaan ka wada soconno oo turaayada ka wada xiriirno deegaankuna macnaheedu nadwaalaan ilaa xuduudka uu noqdo iyo dhulka macnaheedu madaxweynaha Jubbaland uu joogo uu nadwaagu uu ka go'o taariikhdu markay ahayd taariikh 9 waxa dhacday hadaba inuu yiri macnaheedu waxaan ku soo diraynaa kharashkii aad ku fulin lahayd shaqada iyada tasiilaadkii baan ku soo diraynaa waxaan u baahanahay intaan kharashka aan soo dirin inaad dirsato kaarka turaayada oo meelihii aad ka soo gadan jirtay aad u dirsato waxay soo direen lacag $3,000 rasiidkeeduna ka yahay yay soo direen $3,000 waxay ugu tala galeen macnaheedu inaan ku dirsado kaarka turaayada oo turaayadiina waatan weeye aan ku shubto si dhawaan markii nadwaagu uu go'o macnaheedu aan uga wada hadalno turaayadan ka bacdi haddana maalintii ka dambeysay waxay soo direen lacag $80,000 rasiidkeeduna waata iyadana waa $80,000 si fiicanna waxaad uga fiirin kartaan warqadda macnaheedu bartayda Facebook-ga $80,000 bay maalintii dambana soo direen ka bacdi xawaalada lacagtii waan ka soo qaaday 3,080 total ahaan waxay isku noqotay $83,000 waxaanan si toosa ugu wareejiyay wasaaradda maaliyadda Jubbaland yaan lacagtii u gacan galiyay xaqna u lahayd system ahaan inay iyadu maamusho inta kadib waxa jiray oo xogta macnaheedu mar walba aan la wadaagayay oo formationka aan la wadaagayay madaxweynaha Jubbaland
iguna amray xilligaas inaan joojiyo xiriirkooda marka barnaamijkii saasuu ahaa sidaasay ku soo dhammaatay sheekadii na dhex martay aniga iyo Villa Soomaaliya wixii akhbaar ah kale ka kala tagayna waxaad kala socon kartaan qoraalka aan sameeyay mana aha wax iska been abuur ah oon cid raba inaan ku xadgudbo waa wax cadaynteeda ay tahay oo xawaaladihii lacagta lagu soo diray iyo rasiidkii lacagaha taa uu yahay weeye marka waxaan rabaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed inay sidaa ula socoto gaar ahaan reer Jubbaland waxaan ka digayaa shacab iyo ciidan iyo maamul dhammaantiin inaan la kala dhexgelin waad aragtaan qaabka ay wax u socdaan inaad macnaheedu nabadiina iyo amnigiina iyo dalkiina aad ilaashataan iyo dawladnimadiina iyo maamulkiina iyo systemkiina iyo kala dambeynta la ilaaliyo ciidamada Jubbaland iyo shacabka Jubbaland saasaan ugu baaqa waxaa kaloo kamid ahaa erayada uu yiri taliyaha nabad sugidda macnaheedu Fahad Yaasiin ma rabna buu yiri inaad qaado jidkii Cabdirashiid Janan uu qaaday oo kale ee uu hadda u dhimanayo oo ahaa buu yiri macnaheedu ballan uu nala galay ka bacdiina uu ka baxay oo sidii loogu tala galay macnaheedu uusan waxba uga qaban oo u fulinin taasoo ahayd macnaheedu doorashadii Jubbaland oo la rabay inuu macnaheedu waxyaalo badan aan macnaheedu kaga ballanay ka bacdiina ballantii uu fulin waayay sidaa darteedna uu hadda u dhimanayo oo sababta macnaheedu dambiilaha uu noqday ee saa tahay wasiir Cabdirashiid Janan waad ogtahay wuu yiri hadda ka hor inuu yimaaday macnaheedu Muqdisho ka bacdiina dambigii hore ee loo haystay macnaheedu aan ka cafinay warqad macnaheedu cadaynaysa cafiskiisana maxkamaddu inay siisay markan dambe waxa loo haystay loo baadi goobayo ee uu xidhnaa xamar uu xidhnaa hadda macnaheedu loola dagaalamay sababta ballanta uu nagaga baxay weeye marka sidaa daraadeed ma rabno inaad wadadii Cabdirashiid Janan oo kale aad qaado sidaana dambiile aad ku noqoto sida ninkaas oo kale intaana waxa iigu daray taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin waxa kale oo iyaduna jirtay oo ninka la yiraahdo Axmed ninka lacagta soo diraya uu igu yiri oo hadaladiisa kamid ahaa ma hado hadda ka hor buu igu yiri waxaan hawlgalkii Galmudug waxaan anigu gacantayda ku diray buu yiri oo saraakiishii ciidankii Galmudug shaqada fulinaysay aanu diray lacag 5 milyan oo dollar intaana waxa igu daray ninka la yiraahdo Axmed aan jeclaan lahaa inaan baaq u diro oo la hadlo beesha caalamka deeqaha Soomaaliya macnaheedu beesha caalamka bixiya waxaana loogu talagalay lacagaha macnaheedu la bixiyo ee dawladda Soomaaliya la gaarsiinayo in dalka dib loogu dhiso in macnaheedu burburkii iyo dalkii soo kabanayay dawladnimadii iyo systemkii iyo nidaamkii in lagu hagaajiyo waxaana muuqata lacagaha deeqaha ee caalamku uu bixinayo inaan system lagu dhisaynin dawladnimo aan lagu dhisaynin in lagu burburinayo sistemadii hore jiray maamuladii jiray lagu burburinayo lagu dhibaataynayo waxaana cadayn iyo macnaheedu marxaati macnaheedu DNA aniga oo sargaal oo ciidan haysta in macnaheedu lacagaha la isiyay iyo kuwa la ii ballan qaaday ay kuwa yihiin iyo kuwa aan xawaalada ka soo qaadayba marka lacagta qaranka Soomaaliya waa nasiib darro ee ummadda iyo dalkan dib u dhiskiisa loogu talagalay in loo adeegsado in lagu dhibaateeyo gobollo iyo ummad Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo waa arrin aad iyo aad macnaheedu nasiib darro waa runtii waxaana aad iyo aad macnaheedu ii cuntami weyday oo xaqiiqiyan ruux damiir la wuxuu qaato aan ahayn afmadow 9 sano ka hor baan macnaheedu al-shabaab aan ka xoreynay dadkii ku xoreeyay baan 9 sano ka hor al-shabaab aan ku jiray 9 sano afmadow baan joogay oo difaaceeda ku jiray waxaan diyaar u ahaa ama aan difaaca afmadow ugu jiray inaan shacabkayga iyo bulshadayda aan ka difaaco cadawaas al-shabaab ee naxariis laawayaasha dal iyo dad midnaba aanu aabayeelaynin aniga oo difaaca ku jira oo dadkaygii iyo dalkaygii diyaar u ah habeen iyo maalin inaan al-shabaab ka difaaco 9 sano ka hor afmadow ka xoreeyay al-shabaab inaan haddana macnaheedu la ii adeegsado meeshii aan ilaalinayay ammaankeeda iyo sukuuradkeeda in la ii adeegsado
oon dadkaygii iyo waddankaygii iyo dalkaygii aan xoreeyeen cadowga hore uga xareeyay aan dhibaateeyo runtii waa arrin macnaheedu nasiib darro ah sidaas iyagu laakiin damceen arrin soconaysana ma aha waa diyaaradii Hargeysa intay ka kacday oo kale isla Hargeysadii garaacday oo kale san taariikhaha ku maqlay marka waxaan u digayaa guud ahaan bulshada reer Jubbaland ciidamada noocyadooda kala duwan saraakiisha aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wixii aan kala dhaafayna waxaad ka akhrisan kartaan oo kala socon kartaan qoraalka aan soo dhigay bartayda internetka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. janalka warar cusub haddii uu kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo riix gambaleelka mahadsanid.